waxaa idin wadaa qiso mucjisadeeda wadato okay sheekha meesha saaran wuxuu dhahay gurigan gatay guriga markaa gatay bangiga deen ka qaatay guriga markaa iibsaday oo haaf ah iska bixiyey oo haafkii kaleeta maxaa la dhahayay oo la igu leeyahay oo lacagtiisa aanan weli dhammaystirin baa wuxuu igu dhaco dhahay in gurigii oo maanta dhan wuxuu dhahay annagii bal isku keen mashquuliyaba yacni familkayga ciyaalkayga iyo maxaa la dhahay xaaskayga aan mashquul isku noqon ma ahan guriga inuu jin yacni wax dadaadinayo ama guryo waxaa jira jinni uu ka dhaqdhaqaaqayo wax dhaqdhaqaaq ah ma jiro laakiin annagiyaa waxaa isku noqonuu dhahay dab iyo baansiin mataqaaniin wuxuu dhahay qof walba qofka kale wuu ku duuf yacni wuu goosanaa markuu la hadlabo yacni qof kasta wuu cabursan yahay qof kasta wuu xanaaqsan yahay waan yaabayuu uu dhahay maxaas dhahu dhahay gurigan maxaa la dhahayay miska gadaa maxaa la dhahay ma miska celisaa maadaama lacagtiisan aan weli dhammaystiran anigii sidii u yaaban oo wuxuu dhahay waxaa ii soo baxduu dhahay in aan aqrino suurat albaqara waxaan sameeyuu dhahay aniga iyo xaaskayga iyo waxaa ii joogtuu dhahay gabar markaas maxaa la dhahay jaamacad dhigato inta kale laakiin way yaryar yihiin qof walba waxaan dhahu dhahay ha aqriyo aniga waa bilaabuu dhahay hooyadiina way bilowday gabadhiina way bilowday sidaan u aqrinaynay waxaa isticmaalnuu dhahay baqaaqan kan hadda baqaaqan waxaa waaye baqaaqyada oo maxaa la dhahay carfisaha ku jirto oo dharka lagu buufiyo soo baqaaqyada ayagoo faadi ahna waa helaysin ayagoo wax lagu keenay almuhim baqaaqa daa afka idinkaga sheegi lahaa ma fahmi laheen laakiin baqaaq kanaa la dhahaa okay waxaan bilownuu dhahay inaan tahliil ku tufno oo maxaa la dhahay aan tahliil markaa ku tufnana aan baqaaqa intaan ku shubno albaabada iyo dariishadaha iyo guriga yacni geesgeeska guriga geesihiisa meesha maxaa la dhahay derbi kasta uu iskaga imaado aan ku shubno iyo dhulka gidaarka iyo dhulka inta u dhaxayso meelahaasoo dhan wuxuu dhahay guriga inaan ku rusheyno muddo waxaan wadnuu dhahay 2 isbuuc kadib maxaa dhacuu dhahay waxaa isoo wuxuu dhahay wadaad oo sheekh oo maxaa la dhahay asaga naftirkiisa wadaad waaye laakiin sheekh kaleto asaga ka weyn oo caalim ah wuxuu dhahay isoo wacay markuu isoo wacay wuxuu idhahuu dhahay war hebelow maxaa la dhahay maxaa samaysay uu dhahay ayaantan maxaa samaysay markaasuu dhahay first one ma fahmin uu dhahay wuxuu ka hadlaayo laakiin markii dambeetay yani maxaa dadaal ah uu samaysay uu dhahay ayaantan markaasuu wuxuu dhahay waxaan bilownay suurat albaqara anigi iyo maxaa la dhahay familka wuxuu dhahay gurigaada waxaa ka soo baxuu dhahay bahalo oo nooc kasta leh nooc kasta bahalo lahaa gurigaada ka soo baxuu dhahay qaar nool iyo qaar dhinteeb way ka soo baxeen uu dhahay albaabkaada yani waxaa u malaysaa in lasoo xaaqin lagu soo xaaqay almuhim sheekha wuxuu dhahay maalintaas ani barbaleen iigu dambeysuu dhahay barbaleen aniga xaaskayga isqabsano aniga ciyaalkayga qayle iyo buuq wuxuu dhahay maalintaas aa noogu dambeysuu dhahay alxamdulilah washukr bilcaalamiin deganaashaha iyo nolosha aan galnuu dhahay ilaa iyo al'aankan wuxuu dhahay waa ku taagannahay subxaan allah suurat albaqara horta suuro mucjiso ah waaye horey waa uga soo hadlay dad badanna way ka soo hadleen laakiin waxyaalaha waxay ka mid tahay natiijooyinka iyo dadka ay ka gaareen suurat albaqara ani naftirkayga qisaan ka hayaa weli qisadayda ma soo bandhigin insha allah biidni illaah adinkana waxaan rajaynayaa inaad tijaabisaan oo waxaa waye natiijo fiican iyo nolol qurux badan wallahi teemka ilaahay kuu barakayna lacagta ilaahay kuu barakayna caafimaadka ilaahay barakayna suurat albaqara waxuu ilaahay subxaanahu watacaala u dhahay akhdahaa baraka watarkahaa xasra qofkii qaato wuxuu dhahay baraka ayaa korkiisa ahaanayso qofkii ka tagana murug iyo waxaa waye welwel iyo walbahaar ayaa korkiisa ahaanaya la dhahay so muhiim waaye intaa ka akhrisan kartid maalintii 1 page 2 page haddii aad akhrisan kartid maxaa la dhahay kulligeeda saacada ku dhammayn kartaa haddii qof haddaan la qabsanin 1 saac baray kugu qaadanay haddii aad la qabsatayna 1 saac intaa ka akhrisan kartiin ka akhrista ku dadaala maxaa la dhahay baqaaqaasna ha laisla ogaado ha lagu buufiyo ha lagu shubo guriga ha lagu buufiyo insha allah biidni illaah deganaasho iyo xasilnooni muhiim waa horta qofka gurigiisa inuu ku dareemo deganaasho laakiin dhibaato waxaa ah inaa gurigaada aad deganaasho aad ku dareemeynin oo gurigaada la rabtid inaad ka carartid maanta dhan banaan aad isku mashquulisid ama meel is istaagtid dad saas ahaa jiro
so فيديو كان شير قرية ميل دير نقرسية إن شاء الله إني إذا أنفع ذا رجينا يا